السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا بيج كسكري علاد أنا ونوا سكري علاد مانتا وحامرتي إنواء مستر عبد الحكيم أحمد عبد الحكيم ونندنا يراء وحكو صوبرتي ودمدا يوغندا إثيوبيا هيركا لدونا وحبرشة كسوقاتي ودمدا يوغندا إثيوبيا عبد الحكيم وحن كوريسم دونا سفر كيسي وحبرشو سيجار وحان حقو ساري دونا ديارنتي سي شهادة SCCA أو كسو سمية ودنك يوغندا عاصمة ديسا كامبالا وحن كوريسم دونا عبد الحكيم عقبته هدي جيران oo kala kulmay diyaarintiisii SCCA waxyaabo badan oo bulshadeenu ka aaminsan tahay SCCA oo uu isagu soo arkay run ahaantooda waxaynu ka wareysan doonaa talooyin uu haduu siinayo dhalinyarada hadda ku jira SCCA. Cabdi Xakiim soo dhawow xanta ku daraysaa waa dhawahay Sakriye aad kaga mahadcelinayaa maadaadi wax suntay page-kaaga iyo wareysigan adiga qaadasid waa inahaas aad sheegtay Cabdi Xakiim waa ninka dhalinyarta dugsigeygii sare iyo heerkii koowaad waxbarashada sare waxaan ku qaatay Ethiopia oo bachelor degree aan ku sameeyay accounting and finance halkii aan madada professional SCCA aan ku qaatay wadanka Uganda aan ku dhameeyay sanadkii 2022 bilowgiisii runtii waa inahaas waa maasantahay Cabdi Xakiim waxaan rabaa inaan su'aashaada ku bilaabo SCCA maxay tahay gormaysa adiga ku dhalatay waa si fiican waa su'aal fiican Sakriyo runtii dadka ay u baahan yihiin bal inay horta at least ay ka helaan inta bit background about SCCA SCCA waa maada professional finance professional runtii laga leeyahay wadanka Ingiriiska magaca kan SCCA dana waa it's an abbreviation of Association of Chartered Certified Accountants runtii waa maado ay dhigtaan arday ku dhow 500,000 leh ku dhawaad 180 members dad dhameeyay sida aan page-kooda ku arkayna every 8 second uu isdiiwaan galiyo arday cusub runtii ardaydeeduna waxay kasoo kala jeedaan ku dhawaad 170 wadan oo adduunka ku yaala it means waxa weeyaan waa wadankaas ardaygu ku leeyahay marka maadadu waa maado noocaas ka kooban 3 level iyo 13 book si guud waa maadadaas waa maasantahay adiga sidee kugu dhalatay in aad SCCA samayso xaase kugu riixayay in aad SCCA samayso runtii waa su'aal aad u muhiim ah runtii xilligii aan ku jiray waxbarashada jaamacadda degree-ga waliba markii aan sanadkii u dambeeyay ku jiray ayuun baan isweydiinayay su'aalo inta u badan ardaduna ay isweydiiyeen xilliga markii ay marayaan runtii waxaan ahaa arday xilliga jaamacadda dhiganayay sanadkii u dambeeyay ku jira waxaan isweydiinayay markaa iga dhex guuxay jaamacaddii waad dhamayn rabtaa xagee buu noqon doonaa next move-kaagu waxaan kaloo su'aal iska weydiinayay bal intii jaamacadda aan ku jiray maxaa ii qabsoomay maxaan ii qabsoomin maxaan soo faa'iiday maxaan jaamacaddii ka soo faa'iidin marka runtii waxaan dareemayay inuu jiro gaab aad u weyn oo waxbarasho oo jaamacaddii inaan wax badan oo intii aan rabay heerkii aan rabay inaan ka kororsan maadadan accounting and finance ayaan baranayay maadaama ay tahay practical runtii aanan aqoontii aan rabay aanan ka helin marka waxaan dareemayay inuu lack of knowledge fara badan maadadan aan dhiganayaa inuu xaggayga ka jiro jaamacaddana dee wixii aan ka filayay aanan ka helin marka waxaan isweydiinayay xagee baad ka heli kartaa cilmigan ka maqan ma MBA baad iyo master baad aadayo xaggaas ka heli doontaa ma meelo kale laga helaa jira aniga oo ku jira baaritaankaas ayuu maalmaha kamid macallimiinta kamid ah nooga sheekeeyay maadooyinka professionalka sida CPA-da waliba isagoo CPA-da noo xusay marka SCCA muusan xusin then aniga ayaa ku laabtay inaan baxsi raadiyo CPA-du maxay tahay markaas baan anoo YouTube-kii ku jiro oo ka raadinaya CPA-dii arkay meelo video comparison lagu sameynayo SCCA iyo CPA then markaas baan isweydiiyay what's an SCCA then SCCA sidii baan baaritaan ugu sameeyay waxaan ogaaday maado kale oo identical ku ah CPA-da inay tahay similar CPA-da inay tahay waliba ay ay tahay isheeg ay ka maxay ahayd research-goodu ay ka availability badan yihiin CPA sidoo kale centric exams-ka lagu galoona ay ka fududahay in la helo marka loo barbardhigo maxay tahay CPA taas ayaan ogaaday inay SCCA nooca tahay runtiina aan ka heli karo aqoonta aan raadinayo iyo gaabka aan dareemayo inuu igu jiro ay ii buuxin karto oo waxyaabaha aadka igu weynaa waxaa kamid ah inaan dee noqdo qof cilmi wanaagsan iyo aqoon fiican u leh maadadan u bartay iyo aad igu weynayd runtii marka waxaan markii aan baaritaan ku sameeyay SCCA waxay ii soo baxday in SCCA-du ay tahay meesha aan ka heli karo cilmigan aan raadinayo maadadan aan dhiganayo marka waxyaabahaas ayaa kamid ah waxyaabaha igu dhaliyay inaan raadinayay to maximize my knowledge of accounting and finance ayaa the big factors ahaa waayahay SCCA way adag tahay lama samayn karo dad yar baa ka baxa waxay kamid yihiin fikradaha ugu waaweyn ee bulshadeenu ka aaminsan tahay SCCA maxaa ka runaa runtii intaasba waa laygu yiri aniga laftigayga markii aan bilaabayay oo dadku inta badan way yiraahdaan waxna way ka jiraan inta badan oo waa run way adag tahay dad yar baa ka baxa waa
run laakiin waa la baran karaa waa mid oo SCCA academic education way ka duwan tahay waa very challenging qofku waqti badan inuu ku bixiyo ayuu baahan yahay cilmigii iyo buugagta dhiganaysa inaad u taqaanid si fiican baad u baahan tahay si aad exaamada aad uga gudubtid marka runtii waa waxba ka jira laakiin sida loo dhigayo runtii maaha qofka hadii uu soo jeedo waxaan ognahay sanadkii 2022 bishii saddexaad ardaydii dhamaysay SCCA wadanka Uganda inaad ahayd best affiliate ama qofkii ugu sareeyay in other words maxaad isleedahay ba ku suurtageliyay in aad maado saa looga cabanayo inay adag tahay inay dadaal badan u baahan tahay fikradaha iyo bulshada ku aaminsan tahay sidee bay adigu kugu suurta gashay in aad darajada ka gaadho waa su'aal fiican sikriyo waana sida aad sheegtay runtii wax kastoo kulli qofku dee uu bini'aadamka uu ku talagalo oo haduu rabbigiina tala saarto uu gaara runtii waxyaabaha ugu weyn aan isleeyahay marka qadarta rabbi laga yimaado way ka caawiyaan oo ilaahay uu garansiiyay waxa kamid ah kulli inaan juhdi badan geliyo bahashatan dadaal aad u fara badan iyo waqti badan aan u huray marka runtii pointiyada ugu muhiimsan waxa soo dhan hoos imaanayaan oo aan sameeyay waxa kamid ah koow inaan lahaa waqtigeygii SCCA ku dhex jiray self discipline aad u sareeyo oo self discipline waxaan ka wadaa in aan lahaa reading habit inaan samaystay oo waqti dheer aan miisiga ku dul fadhinayo wax akhrinayay sidoo kale inaan akhriskaygu u joogto consistency aan lahaa oo waxyaabahan isleeyahay factors ugu waaweyn bay kamid yihiin oo dii qofku sidoo markuu SCCA dhiganayaan looga baahan yahay inuu reading habit yeesho joogteyn uu yeesho iyo self discipline wax akhriskii uu isku dulhayo oo maxay aad u joogteeyo marka kuwaas waa kamid inta waxa dheer oo qofku specifically uu baahan yahay koow inuu fahmo maadooyinkan uu dhiganayo iyo maada kasta inuu yaqaan objective-kan uu dhiganayo iyo objective-ka laga leeyahay ardaygu inuu ka qaato oo ka fahmo sidoo kale specifically each topic inuu ardaygu uu fahansan yahay oo uu garto objective-ka topic-kan loo baranayo iyo waxa uu yahay iyo waxa uu ka shaqeynayo marka taasna waa waxyaabaha qofka ardayga ay uu baahan yahay aniga aan ku dadaali jiray runtii inay suurtageliyay maada kasta inaan maxay hayto yaan si fiican uga gudbo runtii aan ku mutaysto maxay hayto awardkaas noloshu way caqabado badan tahay inaad ka guurto academic oo u guurto professionals qof sameeyay dareemi kara caqabadaheeda had ma xusi kartaa maxaa caqabado aad la soo kulantay safarkaagii SCCA maxaad ku xalisay runtii academic education waan degree ku soo qaatay way ka duwan yahay professional runtii waxaan aniguna ahaa like a typical academic student ayaan ahaa typical academic student oo kale ayaan ahaa wasada mid ogsoonahay dadka waxbarashadan jaamacadaha soo wada maray way jiraan arday badan oo dadaasha laakiin waxaan dhihi karaa mostly waa iska waxbarasho caadi ah dadku ma dadaalaan dadaal badan iyo juhdi badan lama bixiyo haddana dadku waa iska wada baasaan oo ADB lama waayo aniguna ardaydaas oo kale baan ahaa inta wali waxa ay dheeraa anoo aan dadaalkayguna badnayn in haddana aan inta badan aan iska keeni jiray grade fiican oo last week exam soo dhow yihiin aan roorti jiro wax akhrin jiray dhowdii maadada aan ADB keeni jiray haddana the end of the day markaan dhameeyay waanigi dareemiyay in lack of knowledge badan uu jiro maadadan aan u leeyahay marka runtii waxyaabaha igu kalifayay in aan academic ka guuro oo professional u guuro waxa kamid ahaa in aan dareemay academic wax badan inaan ka kororsan oo cilmi badan iga maqan yahay taas kamid ah hadii aan u gudbo caqabadaha runtii ay leedahay SCCA waxa kamid ah in academic uusan ku diyaarinayn jawi aad ku baran kartid maxay ahayd SCCA bas waxa uu baahan yahay qofku inuu leeyahay reading habit academic waqtigan dhiganayo reading habit ma lahayn marka taas challenge bay igu noqotay bay tamaan SCCA bilaw inaan qof aan reading habit lahayn hadana looga baahan yahay ama SCCA ay uga baahan tahay inuu waqti dheer wax akhriyo taas one of the challenges bay ahayd sidoo kale today inaan lahayn akhris joogto ah xilligii academic dhiganayay SCCA laakiin inada waa inada ay iga baahan tahay akhris joogto marka caqabadahaas oo dhan baan kala kulmay anoo aan lahayn waxyaabahaas oo dhan aysan ii diyaarsanin aanan lahayn self discipline ka ayaan SCCA bilaaway caqabadii ugu badnaa aan kulmay taas kamid ahaa waxa kale caqabadaha kamid ahaa SCCA waxay ugu cusub ahayd waxa cusub sidii wasaga laftigiisa ayaa challenge ah usayfka laftigiisa ayaa challenge oo talafsiga challenge ahayd sidoo kale inaan aqoon meesha laga helo SCCA relevant resources-ga meelaha laga helo aan aqoon iyadana caqabadii markii bahasha bilaabay aan la kulmay ay kamid ahayd markii dambe markii aan gadaal ka fahmay runtii iga saaciiday inaan aan award winning aan ku guuleysto maxay ahayd awardkaas aan ku guuleysto marka caqabada noocaas ay ahaayeen ayaa jiray badankoodana waan xaliyay oo xal baan u wada helay oo ay kamid tahay self discipline ka inaan reading habit sameeyo inaan raadiyo websiteska iyo meelaha aan ka heli karo SCCA relevant resources-ga laakiin hadda waxaad ka shaqeysaa wadanka waliba shirkadaha ugu waaweyn wadanka mid kamid ah waxa ka tahay CFO Chief Financial Officer SCCA maxay ku biirisay career-kaaga ama sidee ku anfacday markaad goobta shaqada joogto runtii SCCA wax badan bay iga si guud waxaan noqday horta qof aqoon u leh waxa uu soo bartay maadana accounting and finance qof aqoon fiican u leh ayaan noqday sidoo
sidoo kale to career-kayga SCA waxay ka anfacday SCA waxyaabaha ay u kordhisay nafteeda waxaa ka mid ahaa in aan noqdo qof leh analytical skill sidoo kale leh qof leh cilmi in detail oo aqoon durugsan u leh maadadii uu soo bartay si fiican u fahmaya sidoo kale SCA waxyaabaha ay u soo kordhisay waxaa ka mid ahaa inaan yeesho critical thinking iyo strategical thinking inaan yeesho sidoo kale inaan samayn karo business decisions ama business judgments inaan saas samayn karo waxyaabahaas oo dhan waxa ay iga anfaceen workplace shaqadii bay iga anfaceen oo shaqada marka la joogo dee waa muhiim qofku inuu very technical yahay oo shaqada si fiican u yaqaan sidoo kale inuu qofka analyzing skill iyo dee uu uu turjumi karo ama uu analyze gareyn karo ama uu lafaguri karo dee financial datadii sidoo kale inaad creative thinking iyo strategical thinking qofka uu leeyahay soo company uga saacido waxyaabo fara badan sidaad ogsoonahay companiyadu waxay u baahan yihiin figures and facts ay go'aan u gaaraan oo madaxda companiyadu inay go'aan gaaraan waxay u baahan yihiin figures and facts figures meesha ka imaanaya runtiina dee waa financial marka qofku maadaama aan lahaa SCA ii diyaarisay qof soo saari kara figures analysis ku samayn kara lafaguridna ku samayn kara inaan ahaa taasi waxay horumarisay career-kaygii inaan position uga sii gudbo ilaa aan gaaro inaan maamulo company finance profession waa guud ahaan adduunka waa profession koreya mar walbana tadawur sameynaya iyo horumar markaad ku eegto wadankeena maxaa sabab kugu muuqdaa mustaqbalka finance profession ku wadanka runtii finance profession ku wadanku wuxuu leeyahay mustaqbal ifaya sida hadda muuqato waxa fiican oo muuqatay dilo wanaagsan baa muuqata waxaad arkaysaa in financial institutionski bankiski ay wadankeena kusoo kordhiyaan oo ay hadda ay bilaabatayba in wadankii bangiyo badan laga furo sidoo kale waxaa muuqata in ganacsiyadii ay soo fahmayaan in dee finance ugu lafdhabar u yahay ganacsigii runtiina financial institutions haddaan ku horreeyay kama maarmaan dee basicooda iyo lafdhabarkooda waa finance professions weeyaan bas waxay hayaan waxaa weeyaan waa services financial services bay hayaan bankiska iyo xawaaladaha iyo ma garanaysaa marka runtii waxaa ii muuqata in dee finance professionka wadankeena aad demand fiican u kala yahay oo aad loogu baahan yahay horumar fiicanna uu samayn karo sidoo kaleeto dee in overall adduunka dee ganacsiyadu ma samayn karaan ama go-aano maxay ahayd taban ma samayn karaan haddii aysan helin figures and facts halka figureski marka ay ka imaanayaan finance haddii markaa aadan haysan finance professionalistada ah oo daatadii kusoo karkarin kara dee go-aano fiican ma gaari karta marka runtii waxaan aad u muuqata wadankeena in dadka ganacsigadii ay fahmeen in ay u baahan yihiin finance professionals si ay go-aano wax ku oola kambaniyadooda ay ugu gaaraan una helaan data very clean ah very maxay ahayd sidoo kaleeto analyzida iyo data maxay ahayd relevant marka runtii si guud finance professionka wadanka mustaqbal ifahiyo ku leeyahay waxaa laga yaabaa maanta wadankeena inaan laga soo inaad aragtid demandiga financial inuu aad u sarreeyo weliba saasoo inuu dee financial institutionskeeni iyo kambaniyadeenna waaweyn wadanka aysan aad u badnay riboodka sanadlaha ah ee sanad walba soo baxa ee lagu qiimeeyo heerka musuqmaasuqu wadan kasta maraya waxaa safafka u horeeya mar walba kasoo muuqda Soomaaliya maxaad is leedahay dii finance professionka xoogga la saaro wax way ka tari kartaa fikradda wadankeena ay ka haystaan caalamka runtii finance profession la'aan waa waxyaabaha factorieska musuqmaasuqa wadankeena kordhinaya laakiin haddii la helo dad finance profession ah oo every sector private public jooga tan musuqmaasuqu uu yaraanaya because qofka wuxuu leeyahay professional ethics qabanaya boundaries qofkan qabanaya ayuu leeyahay oo u diidaya qofkan inuu fraud iyo isdabamarin iyo u sameeyo marka runtii taasi waxay hoos u dhigaysaa fraudka wadanka ka jira iyo musuqmaasuqa ka jira ayay hoos u dhigaysaa waxa ay kor u qaadaysaa finance professionka wadankeena haddii ay kusoo bataan in la helo xisaab iyo financial hufan oo hoos u dhigtaa maxay ahayd musuqmaasuq marka runtii finance professionals wadankeena inay kusoo bataan dadkuna ay bartaan waa waxyaabaha key factorska u ah ee halka u noqonaya maxay ahayd in musuqmaasuq wadanka hoos u dhaco marka waxaad leedahay there is a light there is a big light qof dhalinyaro ah hadda ka qalin jabiyey jaamacad ama secondary isu diyaarinaya SCA ama ay ka dhex guuxayso maxaa tala siin lahayd maanta runtii qofkii horta accounting ama finance uu sidiisa waa practical maanta practical weeye runtii qofkii raba markaa inuu maanta SCA bilaabo ka dhex guuxayso waxaan dhihi lahaa bilow weliba hore u bilow in my time aniga laftigayga waqtigii aan go'aansanayay waxyaabaha ugu waaweyn ee igu riixay waxay ka mid ahaa dee inaan raadinayay inaan maadadan cilmi u yeesho marka qofkii raba inuu maadadatan cilmi u yeesho runtii waxaan dhihi karaa waa best option maxay ahayd oo cilmigaas uu ku heli karo marka waxaan dhihi lahaa hore u bilow and this is the way aad ku gaari kartid cilmiga aad raadinaysid maadadatan practicalka academigu inta badan dhalilaha leeyahay waxaa kamid ah inaysan dadka practical badan aysan siin halka laakiin maadadatan aad mar walba practical ku sameyn doonto real life scenario ka dhaca businessyada adduunka iyo kambaniyada adduunka ugu waaweyn ka dhaca marka runtii waa meel uu qofku cilmi ahaan dee uu ku kori karo in other wordsna adduunka kula jaanqaadi maadaama SCA-du ay maadooyinka kale professionka inta badan ay kaga horeyso in
maadooyinkeedu ay ku wada salaysan yihiin international standard marka taasi waa taas marka qofkaas dadkaasna waxaan dhalinyartana waxaan kula talin lahaa runtii professionalku waa wax aad u muhiim qofkuna cilmi ka faa'iidayo adduunkana kula jaan qaaday waad mahadsantahay cabdixakiim waa kusoo dhaweynayaa waxaan rajaynayaa xogtaas muhiimka ah inay ka faa'iidaystaan bulshada Soomaaliyeed. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.